wafdiga oo horkacaya wasiirka wasaaradda beeraha ahna kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed mudane maxamed xasan fiqi ayaa waxa ku weheliyay wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta salaadiin odayaal dhaqameed iyo sidoo kale waxgaradka ka soo jeeda gobolka Shabeellaha Hoose kuwa oo si weyn loogu soo dhaweeyay degmada lambar 50 ee gobolka Shabeellaha Hoose ujeedka wafdigan ayaa waxay ku micneeyeen dhaqangelinta heshiiskii dhawaan lagu gaaray degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ka oo ay wada saxiixdeen beelihii dhawaan ku dagaalamay Shabeellaha Hoose wafdiga oo si weyn loogu soo dhaweeyay degmada lambar 50 ayaa ugu horeen waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha degmada lambar 50 Cabdullaahi Cali Axmed Waafow sida koonfur galbeed khaasatan mudane maxamed xasan iyo mudane macalin barri iyo dhammaan salaadiinta odayaasha waxgaradka aqoon-yahanada waxa farxad weyn u ah maanta inaan la kulanno ama aan soo dhaweyno la qaybsanno soo dhaweynta wasiirada maamulka koonfur galbeed intaasi kadib ayaa wasiirka wasaaradda beeraha ahna kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed maxamed xasan fiqi waxa uu ka hambaliyay sida loogu soo dhaweeyay degmada lambar 50 dhammaan odayaal iyo maamul degmo iyo dhalinyaro ciidan intaba farxad aad iyo aad u weyn marka ugu horeyso aadi ku salaama salaan kadib farxadda iga badatay ma hadli karo runtii intaanoo shucuubtayda ah oo shacabkii deegaankan ee muddada dheer dhibaatada ku jiray maantana dawladnimo soo dhaweynaya inaan hor istaago waxay ii tahay reyn aad u weyn waxaana rajayn doonaa haddii ilaah raalli ka noqdo imaashadeenna inaan ka faa'idi doonno wax badan aad naga faa'idi doontaan annagana aan wax badan idin faa'iidin doono waxaan rabaa inaan halkaan uga mahadceliyo hogaamiyaashii dhallinyaradii halganka hormuudka ka ahayd dhammaantood Salax Kalgacal Honkebel TV